dhismaha shaybaadhka tayada biyaha oo dhismihiisa laga hirgelinayo xarunta wakaalada biyaha caasimadda ayaa wareyn maariyaha wakaalada biyaha halkaa ka hadlay uu ka waramay muhiimadda ay u leeyahay shaybaadhkani howlaha biyaha iyo caafimaadintoodaba isagoo sheegay in ay muhiim u tahay caafimaadka bini'aadanka waxaana ka mid ahaa hadaladii maariyaha kuwan mashruucani faa'iidadiisu waxay tahay noloshu waa biyaha biyuhuna waa nolosha sidaynu wada ogsoonahay biyaha Hargeysa imika yimaada iyo kuwa mustaqbalka iman doona aad u farbaabba waa la ogyahay quality oo biyo aad u fiican hadana waxa daruuri ah mar haday biyihiin nolosha yihiin in mar kasta la jeegarayo maalin walba la jeegarayo halkii ka soo baxayaan la jeegarayo halkii ku soo dhacaan la jeegarayo halka ugu dambeeyay soosko halka qolku ka furanayo qasabada gurigiisa la jeegarayo marka waxa qorshahayagu ahaa anagoo la kaashadna wasaaradda qorsheynta qaranka iyo horumarinta Somaliland in Hargeysa yeelato laab casri ah oo wakaalada biyaha Hargeysa jeegarayso ilaahay baan ugu guuleeyay mashruuca in badan baan hawshiisa ku jirnay waxa maanta halkan u joognaa dhagax dhigiisii sidoo kale marwe adna aadan ismaaciil oo kamid ah dadka muhiimka ah dalkeena jamhuuriyadda Somaliland isla markaana kamid ah guddiga biyaha caasimadda ayaa sheegtay ahmiyadda uu laabkan u yeelan doono wakaalada sidaad ogtihiin biyuhu waa nolosha laakiin biyuhu waxay xambaaraan waxyaabo badan oo caafimaadka waxyeelaya haday noqoto wax wasakh ah oo cudur keena oo biyaha soo raaca ha noqoto macdano ku jira dhulka hoostiisa oo biyaha soo raaca oo iyaguna ma caafimaadka bini'aadamka iyo wixii caba xoolaha iyo dadkaba waxyeelo u geysta waxaan oran karaa waa horumarada waaweyn ee Somaliland ay gaadhay waxa jirtay maalinaan biyo lahayn waxa maanta la tiigsanayeen qaranka oo dhamay meel biyo laga helo tuulo magaalo caasimaddu ay biyo hesho waxaynu maanta tiigsanaynaa inaynu biyaha aynu cabayno aynu hubinno hubsiimo halbaa la siistaa maarayhu waa ku amaanan yahay wakaalada biyaha ee Hargeysa way ku amaanan tahay xukuumadda Somaliland iyo deeq bixiyaasha suura galiyay mashruucan inuu hirgalana way mahadsan yihiin mahad ugu weyn Ilaahay baa leh in siiyay aqoonta in siiyay nabadda in siiyay nidaamkaas aynu ku tiigsan karno wax si hagaajiya wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka dalka jamhuuriyadda Somaliland Dr. Ali Xuseen Ismaaciil Ali Shombe oo isagu dhagax dhigay dhismaha shaybaadhkan tayada biyaha ayaa waxa uu ka waramay howlaha ballaaran ee intii uu joogay maariyaha wakaalada biyaha uu ka qabtay xarunta wakaalada iyo waliba dadaalka badan ee xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland ay ugu jirto inay horumar gaarsiiso qaybaha kala duwan iyo hay'adaha dalkan jamhuuriyadda Somaliland ka howlgala waxaana kamid ahaa hadaladii wasiirka kuwan waxa xukuumaddan hadda joogtay oo hogaaminaya madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaya ay ku suntan tahay tii horumarka waxaana tusaale marxaati ugu dambeeyay mid maxaa u dambeeyay ka la siisay waa shaybaadhkan imika dhagax dhigan kuma koobnaanayo biyaha wakaalada biyaha oo kaliya warshadaha biyaha soo saara ayaan iyaguna u sheegay ha ku sii tala galaan shaqaalaha laabku iyagoo kitkooda sitay ku imanayna sambalka ka soo qaadaya warshadii quality-ga iyo standardka loo sameeyay ka soo bixi weyda waa laga xirayaa dadka la sameyn maayo waa laga badbaadinayaa dadka shirkadii biyo wanaagsan oo tayo la soo saarado iyadu laabkeeda sameeysan weyda waxaan idinkula sii talinayaa inaad laababkiina samaysataan warshadaha biyaha oo biyihiina quality controlka idinku ku sii samaysaan inta wakaalada biyaha Hargeysa idin waxaan u mahadnaqayaa wadamada inaga caawiyay oo qolada sanduuqa SDF ee horumarinta sanduuqa horumarinta Somaliland ku samaysa qaaraanka oo ay kamid yihiin Difid oo Ingiriiska Danida oo Denmark Norway iyo Netherlands labada dal waxa iyagana aanu mahadnaqayaa oo runtii aan hambalyaha halkan ka hambalyeynaya maarayaha wakaalada biyaha oo soo gaarsiiyay muddadii yareed uu joogay 5 sano iyo barka ahayd in uu ka hawlgalo sidii laabkan loo keeni lahaa laabkan oo qalabkiisa ay keenayso shirkad caalamiya oo Germany iyo Ingiriiska laga leeyahay oo qalabka ugu taliya sareeya ee laga isticmaalo Europe iyo Mareykan shirkadaha sameeya dhismaha waxay u gelinaysaa shirkadda Red Construction oo Somaliland laga leeyahay marka waxaan leeyahay hambalyo kuna sii tala gala waa salaamantiin waxa kale oo hambalyeynaya SDF